habeenka jumcada ee bishu ramadaan 15 marisay arintan dhicin fa sallaytum al-fajr min yawm al-jum'ati maalintaasi hadda tukataan salaad subax fadkhulu buyutakum guriyahina gala waaqliqu abwaabakum albaabadina soo xirta wadathiru anfusakum naftina qariya mariya isku laalaaba dhigihiinna xirta idha ahsastum bis-sayhati فخروا لله سجدا وقولوا سبحان الله القدوس سبحان الله القدوس ربنا القدوس فمن يفعل ذلك نجا ومن لم يفعل ذلك هلك هذا درنتان قيلدا سيدول غريد كاسنا الهي سجود ولا دعاء وحنا ترادان سبحان الله القدوس سبحان الله القدوس سبحان الله القدوس صدح جير ربنا القدوس قفك سيدا سمي waa badbaaday qofkan sameeyna halaka waa halak samay riwaayada bari xadiiskan lagu wariyay marka oo kala duduwan kala nooc waxa kamid rasuulka Ilaahay inuu yiri maalin inta jumcada ee ramadaanku hadii ku aado maalinteeda 15 jumcana ay noqoto waxa dhici doona inta wixii ka dambeeya shawaal bisha xajka tan kale muharram waxa soo dhan dagaalo burbur balaayo dhiiga la daadinaya dadkiiba is cunaya bisha ramadaan iskeeda ayuu dhacaya goor barqa arintaas hadii waafaqo yaani qaylada loo jeeda markay dhacayso wixii ka dambeeyay balaayadu iimaanayso markaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bisha muharramna dib ba dhacaya dadkiiba islaynaya waliba si wax isu laynayaan aqli darra oo kala saarid la'aan xasuuq bay isu geysanayaan ba rasuulku sallallahu alayhi wasallam dul gariir baan hameenka dhacaya markay qayladu yarto ee subaxa jumcada 15 bisha ramadaan markay ku aadanto markaas rasuulka riwaayad kale waxa lagu wariyo kale يكون في رمضان صوت رمضان عد يريتون قالوا وحيدا يا رسول الله في أوله أو في وسطه أو في آخره ووحو دعية أول كرمضان كمسي آخر كيس مسدح دحات كبشة برتمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل في نصف من رمضان برتمها رمضان كايو دعية هدي همين كبرتمها أيها نقطها من جمعاء يكون صوت عدبا وحكيريا من السماء سمدا يحق سريع يسعق له 70,000 وحال الصوحي عدك درتيس 7,000 وحال دغبيليه 7,000 وحال افبيليه عرب كتير هذا الكري وايه لا اندبيليه 7,000 وبمعنى قف با لو jeeda markaas waxay dhaheen ya rasuulallah faman salimu min ummatika ya ummada marka ka badbaadiy markaas nabi wuxuu leeyahay rawaad si lagu tilmaamay man lazima baytahu gurigiisa qofka jooga oo taawada bisujudi sujuudana magan gala wajahara bitakbir lillah yani korna codka ugu qaada takbiirta alle qofkaas badbaadiy thumma yatba'u sawtun aakhar cod kala raacaya fa sawtu al-awwal codka hore ee sidaas ku dhacayso sawtu jibriil way jibriil codkiisa wa thani midka labaadna sawtu shaytaan way codki shaytaan way markaas riwaayada hadda soo tilmaanay ee uu sheegay rasuul